banaanbaxan oo ahaa mid looga soo horjeedo faragelinta dowladda Kenya ay ka wado gudaha dalka Soomaaliya isla markaana lagu diidanaa caleemasaarka sharci darrada ah ee shalay lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose. banaanbaxayaashan oo soo maray dhammaan wadooyinka halbowlaha u ah magaalada ayaa ugu dambeyntii isugu soo biyo shubtay taalada Garbaharey iyagoo halkaasna warbaahinta kula hadlay. waxaana dadkii fagaaraha ka hadlay ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Garbaharey Aadan Siraad Maxamed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa awalan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ama aan salaamo shacab weynaha reer Garbaharey ee xarunta gobolka Gado ee maanta halka isugu yimid inay shucuurtooda muujiyaan ayagoo u taagan dawladnimo iyo midnimo iyo wadaniyad iyo qeyro Soomaalinimo. muxuu ahaayay annaga haddii aan nahay shacabkii maamulkii iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala gedisnaa waxaan diyaar u nahay inaan helno midnimo iyo dawladnimo. ma aqbalayna danaysto ma aqbalayna maxaan ku raahdaa mid dan gaar ah leh iyo mid raba inuu kursiga sii adkaysto. waxaan rabaa marka inaan saddex qodob ka hadlo oo gaagaaban. kow waxaan rabaa inaan dawladda Kenya iyo waxa ay sameynaysaa ka hadlo iyo fikirka ka qabo. walaalayaal waxaan wada ogsoonahay dawladda Kenya in niman daba dhilifyaa oo magaca Soomaali ka oo mas'uuliyad aan ku aaminay ay shalay heshiis kula galeen badda Soomaaliyeed. maantana ay maraysa heerka ay maraysaan wada garanayn. kuwii ayaga ahaa iyo kuwa kale soo abaabuleen maanta inay Kismaayo fadhiyaan. waxay u fadhiyaan ay tahay dhaqaalihii ay macnaha shal qaateen inay meel mariyaan oo dib aan loogu laabanin oo maxaan ku raay Kenya ay dib u qabsanin. maxaa la ii xiray stop asaga Shariif ay la taagnaayeen stoptuma waxay noqotay unsiga miyay noqotay aadan bare ducaale uu saaka la soo bandhigto unsiga uu la taagnaa. ma mid ayadaan ku qanacsannahay inaan unsiga asaga wax ka qaadano mise waxaan ku qanacsannahay inaan dirirno. waxaan sheegayaa annaga qofna dooni mayna maanta midaan way ka gudubtay. hebel dooni mayna way ka gudubtay. siyaasi hebel dooni maynana way ka gudubtay. tan waa xabad waa dagaal waa nin iyo tabartii iyo taagtii wuxuu u goystay. dawladda Kenya markaan u cadeeyo waxa ay tahay waa naqaanaa saweyn iyo meeshay taalo. niman honor ah yaa Kismaayo isugu tagay waa nimankii dalka gatay. waxaan rabaa mid inaan ooga warramo. waxaan rabaa inaan ka warramo nimankii meeshaas isugu tagay. Kenya waa laga soo hadlay rag iga soo horreeyay baa ka hadlay. Shariif Bijaale wadankii asagoo madaxweyne ka ahaa waxaa la gatay badii wuxuu wax ka gatay waa haddana wuxuu yiri waxba kaba ogi. Garbaharey oo caraysan oo qiiraysan oo ka hadlahayo dhulkooda la qaatay oo Kismaayo ay maxaan ku raadayay ka mid ka tahay. Kismaayo waa la dhacay wax alla wixii dagaal ooga ah oo meel walba laga soo cayriyay baa isugu yimid oo ku ballamay. Axmed Madoobe ana u sahlay. Axmed Madoobe marbu anaga madaxweyne noo ahaa 8 sano madaxweyne noo ahaa. markii waqtigiisa la gaaray inuu buuf dhaho hadda markii horena maxaan ku iraadaay talama dooran oo dagaal buu ku qabsaday laakiin waa ogolayno waa daba socon asaga is doortay dagaal ogayaal kale oo raba ayaguna sidaas oo kale inay hadhow sameeyaan oo asaga ka maxaan ku iraadaay ku dayanayo oo meel walba isaga yimid baa Kismaayo qabsaday timid Kismaayo una walaaqaysa dawladda federaalka intaas aad u walaaqaysa dalkii baad gadatay baddi baad gadatay maanta dhibaatada Soomaaliya iyo Kenya dhextaala adaa dhex dhigay haddana waxaad saacideynaysaa kii ku sahli lahaa Axmed Madoobe baddi aad gadatay kuma qaban karo Soomaaliya oo dhan baa u taagan Soomaaliya ay ka cabirigiina iyo baddiinaba cishada Soomaaliya aan leenahay Puntland waxaan leenahay dad xalaal ah degan doorashaad ku soo gashay daniyow waxa weeye waa laga daba qaylinaya imaraad baad baddi siisaa la leeyahay dekadii baad bixisaa la leeyahay waa arkahaya odayaasha Boosaaso wixii ay ku hadleen iyo shacabka waxa weeye dhulkii aad gaday oo imaraad siisaad kana waxaad rabtaa imaraad iyo Kenya inaad u qaybiso oo kala qayb gasho ka baxbaan ku leenahay nin dalkiisa xor yahay baa tahay nin waxa weeye aan dakana hore qabin baa tahay laakiin hadda dakana dalaqtiri taasaan leeyahay dawladda Kenya waxaan leeyahay taaka kamid ah dhulkii baad haysataa NFD baan kugu haysanaa adna badbaad u hanqal taagaysaa NFD baan kugu haysanaa bangal iyo gaarisa inaan ka soo jeesano oo Soomaaliya israacdo yaan annaguna xulaynaa adna waxaad rabtaa Puntland ee Jubaland inaad ku darsato NFD kuma suuroobayso
ma aha markii ugu horeysay oo dibadbaxyo noocan oo kala laga dhigo degmada Garbaharey ee xarunta u ah gobolka Gado.